munaasabada loo sameeyay xadhigga jirista dugsigaasi loogu talagalay in lagu barto cilmiga beeraha ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha madaxtooyada gaashaandhigga hawlaha guud iyo guryeynta wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada barasaabka gobolka Sanaag iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Dr. Axmed Xaaji Xasan Cawada oo ah muwaadin u dhashay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dugsigan maalgeliyay inkastoo muwaadinkani uu dugsiyo fara badan uu ka hirgeliyay gobolada Sanaag iyo Togdheer hase yeeshee waxa uu sharaxaad guud ka bixiyay ujeedada uu taagan yahay dugsigani iskuulkan ay ugu tala galeen iskuulkan waxaanu anagu rabnaa waa iskuul qaran oo inanka ceergaaba jooga iyo ilaa ka Boorama jooga ka Laascaanood jooga ilaa iyo ka Hargeysa jooga ka Berbera jooga ka Burco jooga inay halka kan 3 sano class 8 ku ay ku bartaan diplomka farming maxaa la barayaa technical farming waxaanu haynaa syllabuskii macallimiintii waa noo diyaar buugaagtii waa noo diyaar waxa noo diyaar oo kale wax allaaliyo wixii tools iyo waxaan kaas lagu qaban lahaa marka waxa aanu hadda joognaa meeshii iskuulkan function gareyn lahaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye ayaa munaasabadaasi ka hadlay waa idinku dhiirigelinayna aad iyo aadna waa idinku hambalyeynayna dadaalka muujiseen wuxuu mudan yahay in la idin la qabto sida markii horeba wasaaradda beeruhu idin la qabatay baa naga go'an in la idin la qabto xukuumad ahaan waxyaalaha baahida tilmaanteen ee aad sheegteen wixii suurtagala la qaban karo awoodi saamaxdo waxba la idinka akran maayo haday tahay waxa weeye ardayda waxa weeye boardingka sanadkii aad tiraahdeen iyo haday tahay gaariga iyo haday tahay caafimaadkoodaba arrimaha noocaas aad tiraahdeen dhammaantood wixii suurtagal la idin kala qaban karo iyo stationka dhammaantood waa idin kala qabanayna biidnillaahi tacaala sida dhakhtarku u fakarayo fishankiisa iyo sida uu ugu shaqeynayo dalkiisa inuu ugu shaqeeyo oo ummadiisa wuxuu u qaban karo uu u qabto annagu ka wasaaradahan haddaan nahay wasaaradda waxbarashada waxani waxa weeye waa hawshayadii waxaana la ka rabaa oo aan anagu ballan qaadayna macallinka inaanu mushaharkiisa bixino macallinka halkan wax ka dhigaya dugsigan oo laga dhisay deegaanka Beero oo caan ku ah wax soo saarka dalagga ayaa waxa uu guud ahaanba yahay dugsigii ugu horeeyay ee noociisa ah ee laga dhiso dalkan Soomaaliland deegaanka Beero ayaa dawladda Soomaaliland waxa ay ka fulisay mashaariic aad u tiro badan oo ay ku tayaanayso waxna kaga qabanayso guud ahaanba wax soo saarka deegaankan wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Faarax Cilmi Geedoole iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda beeraha Soomaaliland ku soo bandhigay wax qabadka wasaaradooda waan ugu mahadnaqaynaa waxa weeye beer markii hore waxba laga qaban jirin intii dawladda kulmay ay timiday waad arkaysaan laba kinaal oo kaliya haato haddii aan imika waqti ma haysataan aynu soo tusi lahayn oo dhammaystirkooga hadda uu dhow yahay waxa loo qabtay beer wata ay maqlayse labada kinaal oo 500,000 oo dollar imika lagu bixiyay oo bishan loogu talagalay in la xiro oo dherkooda iyo 4 kiiloomitir waa la qabtay waxa loo qabtay 4 sanadood 1200 oo saacadood oo loo qoday 600 oo saac 600 oo qoys oo tan yaro lacagtii laga bixiyay waxa loo qabtay laba cagaf oo MFO kuwan ina taagan mid ka mid tahay oo la siiyay waxa loo qabtay cilmiga wax ka wacani ma jiro 20 beereed ee 3 bilood iskuulka beeraha abuurniin ka soo baxay oo beere ay 3 ku leedo nin waliba 3 bilood tababarkii soo qaatay ninkii bana sii barayo 30 kale oo beeralaya taana waa loo soo tababaray oo aqoontooda sare loogu qaadayo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu geesta kala hambalyo u diray guud ahaanba degmooyinka iyo tuulooyinka gobolkan uu ka kooban yahay gaar ahaan kuwii uu safarka ku soo maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo uga mahad celiyay sidii diiranayd ay u soo dhaweeyeen madaxweynahooda mudane wasiir waxaan mar labaad si kalgacal kale uga mahadnaqaya dhammaan deegaanadii uu soo maray madaxweynuhu ee hoos imanayay gobolka Togdheer bulshadii ku nooleed sida u qaabishay waxaan leeyahay
ilaahay waxaan ka baryayaa sidaa iyo si kasii kusran وعبد الستار صبري تي في قرنك سوماليلاند برعو